بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ku soo jirnay barashada software-ka AutoCAD waxaan ku soo jirnay chapter-ka dimension casharkan waxaan ooga hadli doonaa editing dimensions waa mid kamid ah casharada ugu muhiimsan ee dimension-ka please isku day inaad si fiican ila socoto practice badanna inaad sameyso isku day marka editing dimension waxaynu aadaynaa annotation inta ayaynu tagaynaa kadib waxaan dooranaynaa panelkaas وهكذا then modify أما waxaan dhihi karnaa waxaa sameyn kartaa just D press D then enter dheh وهكذا marka halka marka imaado waxaa kusii dhufanaysaa modify waa ku dhufanaysaa halkan boxka waa marka boxka aan rabno in darsigeena aan uga hadalno marka si fiican ila soo insha Allah wax walba waxay nooga muuqan doonaan halkaas gudaha yarka ah ayay nooga muuqan doonaan wax kasta oo ka bedelno insha Allah dimensionka lines hadaan ku bilaabo yani qaybaha ugu muhiimsan ayuu ma ka soo qaadan doonaa waxaan ka rajeynayaa inaad sameysid more practice line markaan soo qaadano dimension line waaye line-ka dadban ee yarka ee dimensionka weeyaan ee tirada ay ku dhex qoran tahay line-kaas waxaan sameyn karnaa inaan ka bedelno color-ka مثلا red aan ka dhigno waxa uu jeeda Soomaa yani line-kaas waxaa la dhahaa dimension line waxaan ka dhigan karnaa midabka u baahan yellow waxaan ka dhigan karnaa any kind of color aad jeceshahay aad ka dhigan kartaa marka qaybtaas line-ka waxaan kaloo sameyn karnaa line type-ka uu yahay waa pipe log noocaas waaye waxaan ka dhigan karnaa noocaas dash wadato waxaan ka dhigan karnaa noocaas kale mid kastana wuu ku muuqan doonaa insha Allah marka aan iska doorno kaas dash-taas wato ayaa fiican marka waxaa kale oo muhiim ah inaad ogaatid extension line waa line-ka u dhaxeeya dimension-ka iyo object-ga yani dimension line iyo object-ga line-ka u dhaxeeya waayo ma fahanta marka aynu fiirno asagana waxaan sameyn karnaa waxaan ka bedeli karnaa color-ka extension line-kan waxaa loo yaqaanaa drawing-ka caadiga gacanta marka la joogo projection line waa line in between dimension line and object projection line ama waxaad dhihi kartaa waxa loo yaqaano extension line waa line-kaas oo u dhaxeeyo dimension line-ka iyo object-ga aad cabiraysid haddaba aynu eegno waxaan ka bedeli karnaa midabka asagana green iga dhigba waka soo ma jeedi waa kana object-gii marka kaas ayaa waxaa la yiraahdaa projection line ama extension line waxaan kaloo sameyn karnaa asagana inaan doorano what kind of line we use line nooca aan dooranayna intaas noocaata ka dooran kartaa marka waxba yaan ku daahin insha Allah mid qaybaha ugu muhiimsan ayaan fiirinaynaa marka line waxa ugu muhiimsan dimension line iyo extension line kaas si fiican uga fahanto okay way aan fiirin marka sign plus and arrows arrow-ga waxa weeye madaxa maxaa la dhihi jiray sheeg madaxa arrowgaas yani dimension line-ka madaxiisa dimension line-ka meesha iska galayaan projection line-ka مثلا هذا نوع عصنو ياي waxaan ka dhigan karnaa architectural tick waan ka dhigan karnaa fahmaysa insha Allah waqti doona taarta dooran kartaan marka aad wuxuu noo ahaa noocaas marka waxaa ka dhigan kartaa noocaas ma noogu bedel architectural ka sabel ah ma garat arrows ayaa bedeli kartaa meesha la sameyn kartaa marka ayada inta soo nooga socdo textiga muhiim waa ayadana textiga aan fiirno text appearance-ga eeg text style ka aad u jeceshahay nooca waaye intaasoo nooc ayaad ka dooran kartaa laakiin hadda standardkaas ku ahaado ya text color bal color-ka aan ka bedelno hadda cadaan buu noo yahay ya noocaas ka dhig fahmaysaa text color waxaan sameyn karnaa inaan ku wareejino box ama meel ay ku dul fadhiisato oo maxaa la yiraahdaa color ah aan ka dhigana color kala noocaan maxaa la jiray noocaas موجودة فاهميسا text height marka rabto inaad weyneyso ama aad yareyso inta aad ka bedeleysaa iligaas waa ka socon kartaa waana gelin kartaa value aad u baahan tahay specific value مثلا hal meter 5 meter whatever you need ilkaas waa ka socon kartaa fahmeysa waxa ka soo ka bedel halkaas ka muuqan hadda kor u qaadaya waa sii weyneenaya 0.6 samaraya marka laakiin hadda hal masas dhaadid value iska gashay 0.5 oo kale
waxaa kaloo meeshan muhiim ah dimension placement xageen dhignaa ya centerkooda noo yaala waxaan dhigi karnaa above yani dimension line kan korkan saari karnaa ya waxaan dhigi karnaa outside banaanka waa ka geey fahmaysa marka laakiin centerka noogu macaan centerka dhig fahmaysa okay marka aan hore usii socdo fitkan aan fiirino مثلا هذا كوانو كلا كلران iska bedel oo cadaankeeda isaga daa waa ku practice gareynayni waana ka dhigan kartaa you can choose midabkaad u baahan tahay laakiin aniga wada san ayaan iska jeclahay aan ku deysto ay fidan ayadana maxaa ku jiro wax muhiim ku jiraan primary units aan fiirino primary unit ka ayadana muhiim waaye linear dimension ka noo yahay aan fiirino unit format hadda wuxuu noo yahay decimal you can use engineering architectural hadda engineer aan doorno tirooyin kale inoo gelinayaa waa mujida marka waxaa noo doortaa scientific waa ka dhigan kartaa waxaa ka soo marka decimalka fiican decimalka wuxuu noogu fiican yahay pointyadii ayaa helaynaa maxaa la jiray tira saxan buu ku gelinayaa haddii hadda aan dhahno scientific soo doono ka dhigaya mujida meesha plus iyo xisaabaadkii eedii wax imaanay mujidido marka decimalka iska dooro mar walba meesha ku haata decimal aye بالسبشكان تنام فيرنا يعني وعوية انتهت بهان هذا هل عنده يعني ما هلا يوحل واحد بوينتية 3 point something مهليو يعني one significant figure بس واحد ده تنا لبا بوينتي كبدل مهلي كانوا مركا إثبات أنا تري كديتي هذا جوز كهذا وايه أفرا كدي كرتا فمثال مركا الله المستعان انتنا فيرنا angular dimension كا انت تا كبدري كرنا ايضا كبدري كرنا ناس ودورو فاهميسا marka waxa weeye cashkan ugu dheeraanayo waxaan rajeynayaa inaad si fiican meel walba aad gashid wax kaama halaabayaan just hadaad ka shakeyso cancel dheh fahmaysaa intaana marka isbedelada aad samayso kadib waxaa leedahay marka okay kadib waxaa leedahay okay halkaan ayaan ka wada arkaynay wixii oo dhan aan ka beddelnay marka waxa ugu muhiimsan lines symbols text yaa ugu muhiimsan iyo primary unit kaas fahmaysaa laakiin waxaan kuu boorinayaa inaad samaysid practice badan aad YouTube ka gashid aad Google ka gashid aad isku daydid inaad waxyaabo badan aad kasii fahamtid insha Allah intaas ayaan cashar ku soo gabagabeynayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.